gudoomiyaha golaha deegaanka Gabiley Mudane Shacay Maxamed Muuse ayaa si adag u weeraray siyaasadda xisbiga UCID ee ku wajahan gobolka Gabiley isagoo oo sheegay in magaalada Gabiley ay ka dhex wadaan campaign reeraysan ilaahay baan ku dhaariyay sida isku qabanaysaa adigoo tacsiib oo u socday tacsiinaad soo maaragtay soo boqoto xaafadii geeriysan inta timaado inaad haddana intaad ku dheer tagto halka xaflad kala ku qabato marka ujeedadu tacsiib socod ma yahay wax kale qofka bini'aadamka ee damir kale in labada isma geeyo inuu tacsiib tago isla markaana haddana xaflad halkan kale uu ka heeso xaflad halkan kale ku qabto in xaflad tacsiib lagu dul qabto waan ka xunnahay marka tacsiideena dadka reer Gabiley duqa degmada Gabiley waxa uu jawaab ka bixiyay hadallo ka soo yeeray Mujaahid Cali Guray oo uu ku naqdiyay maamulka Gabiley inta halka la soo istaagay leeyahay waxaynu nahay reer maanta reernimo wax nagu siiya wax leena reer manina qarabaan waa nasiib daro dadka inta la leegay ummadda u sharaxane isku dayay hoggaanka ummadda u tartamaya intay Gabiley yimaadaan inaan reer baanu nahay reer wax nagu siiya Cali Guray oo kale yiraahdo beheblaayay maanta sidaan laga yeelo marka waxaan leenahay waxaasi wax dadku idinka dhageysanayaan ma aha laakiin barnaamij cad marka waqtigiinu gaaray ee doorashooyinka lagu dhawaaqay campaign-ka la gaaro ummadda barnaamijkiina siyaasadeed soo hordhiga sidii kulmiye barnaamijkiisa siyaasiga u keenay ee weliba u fuliyay gabagabadiina waxa uu baaq u diray dilaalinta dhulka oo maanta uu kulan la yeeshay golaha ka soo baxay oo dhinaca qoloodada iyo cadalkooda iyo wadooyinka maanta wixii ka dambeeya ku wada shaqeynayna isku ognahay waxa weeye koow cashuurtii la ilaaliyo laba in wadooyinka laga dhigo amba aynu ka dhignay sidii golaha deegaanka ansixiyay 18 mitir sanadii golaha deegaanka qaybtii dhulka xisaabnay taasina u baahannahay in laga wada hawl galo wax walbana la ilaaliyo inuu notooyinka waxaan ku boorinayaa inay ilaaliyaan cashuuraha Mukhtaar Nuux Ibraahim Hon Cable TV Gabiley.